بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأصدق الحديث كلام الله تعالى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت سفي عن اللي قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدينا سوقرا عن حتى النفس قليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آدي بدو مهدسنتهين وقرينتي إلهي بمهدسن سبحانه وتعالى. ربي نو سورة قليي نو عافمات قبنا ونبات قبنا إن نسوقني مع أنه مدشن قروح بدن ومؤتمر كأفراد يسوق بقى بسي بحث أنصار السنة تراست كيسي كوبات لابد يكون إسديدية طبنكو أها كي لابد يكون إسغالي طبنكا كي سدحادنا سنة كان لابد يكون كوي لباتنكا يمغالة هرقيسة كأفرادنا أما كي أفرادنا واميت كمانتا aanu wada fadhina dhammaanteen. marka soo dhawaada, jazaakum allahu khayran. mahadda rabbi subxaanahu wa tacaala kadib iyo soo dhaweynta waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo bahda ansaaru sunna trust. barnaamijkan ay soo qaban qaabiyeen ee aadka u quruxda badan, ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala barnaamij naajixa oo isaga dartii ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo. bahda ansaaru sunna trust معلمين يا مامل يا أردي يا والدين دمان توت وما تسيهين وحنا أضيو وقدومي شيخ عبد الرزاق عبد الله آدم شيخ عبد الرزاق جير جنرال كواتشوغا جنرال جير وفديا أنا جنرال كوا معلم كيغا مركا عرب كيغا معلم نمدي هرو لقب صدي مركا إنسان سلام نون كدا معلم ور معلم نمدي وجنرال نمال نقدا هذا محافظ عنيو ولي واقع سنته marka generaale jazakallahu khayran. barnaamijkan adiga bahda ansaaru sunna oo dhan waa ku mahadsantihiin. mahadda kadib ansaaru sunna kadib waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo culimada sharafta leh ee qiimaha badan ee karaamada mudan ee ayaga la'aantood barnaamijka uusan quruxsanaan lahayn. barnaamijka noo nuuriyey, magaalada noo nuuriyey, barnaamijka noo qurxiyey, xurmad badan iyo xushmad badanna inaga mudan, barnaamijkana ka wada qayb qaadanaya. dhammaantood waxaan leeyahay waqtiga aad soo hurteen aad baad ugu mahadsan tihiin. culimada dhammaantood sheekh xuseen jibuuti oo jibuuti maaragtay inaga soo booqday, sheekh doctor yuusuf axmed oo magaalada waddankii sweden asagana inaga soo booqday, sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo soomaaliya magaalada laascaanood isagana naga soo booqday. mp-geena oo nala jooga, mp-ga waa u iman doonaa sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi. sheekh waa saxay hadda soo ma mar horaa liigu qabsaday sheekh cabdirashiid cali suufi intaa inaan baxar galay mogda. marka sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi jazaa allahu khayran oo waddanka qatar naga soo booqday. sheekh maxamed cabdi umal asna xaguu naga soo booqday oo hirowi nala jooga. mwenyeji فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد صالح ودنك نوروي naga soo booqday. maxaa kale u dheer dictorka intaas hadda waa barateen uma leena waa ninka ugu da'yar culimada Soomaa. intaas hadda anigu waa la xifdiyay si fiican loo qeybiyay arinta. فضيلة الشيخ الدكتور بشير أحمد صلاد gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho naga soo booqday. sheekh xuseen jibuuti xagga ku ogaa halkan hadda u soo guuray. sheekhana soo dhaw war kale. sheekh maxamed idriis واسمه نقصه بقدلك تركيا وأنا شيخ القرن أنا بحي أسنا جزاه الله خيرا. شيخ نور كبير أو شيخ حسين جبوتي ولا ليه سما سما ولا له شيخ نور كبير بيك بركة جنرال كوب بحي أسأل وسود ويننا وحكلوا يجري ناس الصعودة. شيخ محمود محمد شبلة، شيخ مصطفى حاجي إسماعيل
sheekh Saciid Raage, sheekh Jamaaluddin Usmaan imaamka Jamiya Mosque dooda garanaysaan, sheekh Cabdilqani Bashiir, dhammaantood culimadaas iyo culimada kale madasha joogta waa mahadsan yihiin ayagana jazaahumullahu khayran. culimada aad baan u soo dhawaynaynaa. waxaan jeclahay markay xigta inaan u mahadnaqo kasoo qaybgalayaasha. intaanan kasoo qaybgalayaasha u gudbinna aan ka hormariyo marti sharafta inala joogta ayagana, madaxda inala joogtay siyaasiyiinta. waxaa nala fadhiya maanta nala jooga MP-geenna Yuusuf Xasan Cabdi, waa mahadsan yahay MP-ga, asagana waan soo dhawaynaynaa. walaalaha barnaamijka tabinaya ayaguna waa mahadsan yihiin. tiimka protocolka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. ciidamada amniga ama askarta inala joogta aad bay ayagana u mahadsan yihiin. tunawashukuru sana askari wetu ambao walioko na sisi leo wanaojitahidi kulinda usalama. shukrani za dhati kwenyu nyote. Da'wa TV oo barnaamijka tabinaysa si khaasa ayagana u mahadnaqayna iyo howlwadeennada Da'wa TV. Ladies and gentlemen, dhammaan kasoo qaybgalayaasha ayaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. soo dhawaada, jazakumullahu khayran. intaa kadib barnaamijkeen wuxuu inoo socon doonaa sabti, axad, isniin iyo talaado. saas soo ma 4 casho ayuu barnaamijka socon doonaa. maalmaha qaar bacda duhur ayuu barnaamijka u gudbi doonaa, waa la soo noqon doonaa qadada kadib insha allahu tacaala. maalmaha qaarna ilaa 1 duhurnimo ama 7 saac ayuu barnaamijka ku ekaan doonaa biidni illahi tacaala. muxaadaraat iyo nadawaat iyo khawaatir iyo kalimaad kala duwan oo aan ka faa'iidaysan doono ayuu barnaamij ka koobnaan doonaa biidni illahi tacaala. goobtu waa halkan 4 casho barnaamijku uu socdo insha allahu tacaala. waxaan idinka rajaynaynaa dhammaantiin nidaamka inaad ilaalisaan. mar walba deganaanta iyo fadhiga quruxsan iyo sida wanaagsan hadda aad u fadhidaan aad ku dadaashaan. socodka badan la joojiyo. protocol team loo hoggaansamo, warkooda la maqlo, instructionkooda iyo tacliimaadkooda la raaco insha allahu tacaala si barnaamijka uu si wanaagsan inoogu socdo. protocol team ayagana waxaan leeyahay mushike kazi yenyu vizuri. And then as you are also being very strict on maintaining the rules and regulations, at the same time you try to create some room for lenience so that everybody can be accommodated and can have a very good memory in this program inshallah ta'ala. intaasna xoogaa yara waxay ahayd aan u dusinayay program teamka saasa marka luqadda u bedelay raalli ahaada ilaa idinkaydin ma naxamanaynin. inshallah ta'ala marka barnaamijka uu noo sii socon doonaa. waxaan ka tegay ma jira protocol team. kuna kitu mnataka niwaambie? kuna kitu nimesahau? Faisal Qasim and his team. ganacsatada baan ka tegay. ganacsatada poleni sana, poleni sana. marka ayagana waa mahadsan yihiin, waana soo dhawaynaynaa. dumarkana si khaas ah loogu mahadnaqaa layidhi. dumarkana waa mahadsan yihiin, jazaahumullahu khayran. ayagana hore usoo buuxiyeyba hoolka. waayahan dambana maasha allah xagga khayrka ragga waaba uga dheereeyaan. ayagana waa mahadsan yihiin, hooyooyinka, gabdhaha dhammaan jazaahumullahu khayran. waxaan u malnaa marka barnaamijka waa sii wadan karnaa. Faisal, kuna kitu nimesahau nafaa kuambiwa? hakuna? okay, we can proceed. sawa sawa. barnaamijka waxaa daadihin doona insha allah tacaala aniga cabdiraxmaan sheekh mursala iyo walaalkay ustaad maxamuud cabdinuur maxamuud dulyadayn ku magac dheer. muxaadaraadkana qayb ku yeelan doona, barnaamijkana ila daadihin doona. isagana maraykanku inaga soo booqday, jazaahullahu khayran. halkanuu iman doona, waa baran doontaan. labadeena barnaamijka isla daadihin doona insha allahu tacaala inta mu'tamarku u socdo. marka waxaan u maleynayaa hadda waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijkeena maanta si u socon doono. qur-aankan insha allahu tacaala ku bilaabi doonaa. kabacdina waxaa xigi doontaa kelmad uu soo jeedin doono hostiga oo soo dhaweyna sheekh cabdirasaaq jiir, generaal jiir. kadib kelmadda sheekheena sheekh maxamed umala ku xigi doonta. kadib MP-geena Yuusuf Xasan Cabdi muheshimiwa insha allah tacaala kelmadiis jeedin doona. garad cabdirashiid oo inala jooga asna kelmad yeelan doona. sheekh inaga soo booqday Masar oo kelmad ayadana maaragtay mahadnaq iyo soo dhaweyn iyo wacyigelin isugu jirto af carabi ku baxaysa. sheekh cabdinaasir cabdilxakam ayaa isaga inala joogo kelmadiisa jeedin doona insha allahu tacaala. kadibna muxaadaraadkii ya sayid Soomaal asna insha allahu tacaala kelmadiisu yeelan doona biidni illahi tacaala. marka programku waa inoo furan yahay insha allahu tacaala. marka dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysanaan rajaynaya biidni illahi tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala si fudud
haynoogu dhammaystiro barnaamijka biidni illahi tacaala. haddana waxaan jeclahay inaan u yeero alqaari alimaam yaxya cabdi saciid suu inoogu furo barnaamijka oo inoo akhriyo aayado qur-aanka kariimka ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا. قاري يحيى آد بومات سنياي الله سبحانه وتعالى آياتها نوانفعوا أساقنا ميزانك حسناتك أسارو. dadka waxay leeyihiin markii hargeysa la joogay luqadihii urduugii iyo wixii ma ku tuurtid marka staylkaas hargeysu gooni ku ahaa laakiin maanta luqadihii ingiliishkii iyo sawaaxiligii iyo waxaan ka sugaynaa sheekh umal inuu ku hadlo insha Allah taala asaan ka sugaynaa maanta inuu noogu tuuro saga magaca reer Nairobi ku hadli doona insha Allah taala marka sheekhana ingiriiskii sawaaxiligii maanta adaan ku daayay adeegu sugaysaa insha Allah. haddana waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo General Jir Sheikh Abdulrazaq Aadan Abdullahi Aadan iyo kelmadiisa soo dhaweynta soo dhawo General.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال بعد شكر الله تبارك وتعالى وإذ كشكرنا يا دمانتين علماء مرتي شرفك ووجوه الرئيو MB جينا يوسف قرادة عقاشة maxay ahaydayay ragga iyo dumarka oo goobta soo xaadiray dhalinyarada oo rag iyo dumarba leh caruurta iyo dhammaan cid kasta oo saaka inagala soo qayb gashay maxay ahaydayay goobtan qiimaha badan. si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa walaalada culimada dunida dacaladeeda iyo daafaha dunida oo dhan ka yimi, hadday Yurub iyo Carab iyo Afrikaan iyo meel walba iyo Ameerikaba ahaan lahayd waa nooga wada yimaadeen. magacyadooda ku celin maayo oo waa taxsiilu xaasilin maxaa yeelay waxaa sheegay al-akh Cabdiraxmaan Sheekh Mursal. walaalada bahda ansaaru sunna oo ka wada shaqaysa mu'asasatu ansaaru sunna si gaara ayaan ugu mahadcelinayaa oo qabanqaabisay mu'tamarkan iyo kuwii ka horreeyey. sidoo kale waxaan si gaara u xusayaa telefishinka dacwa TV oo aan rabo maanta inaad ila qaadataan. dadka doorashada markay ku jiraan baa oday baa hadla wuxuu yiraahdaa MB-gaan baan rabnaa inaan doorano sida maanta Yuusuf Xasan noogu joogo oo rabno inaan isla qaadano. bay waxay yiraahdaan marka doorashadu ay bilaabato ninkan intay gacanta qabtaan waa qaadanay mana la qaadateen. waxaan rabaa maanta inaad nala qaadataan dacwa TV. waa television oo dacwada oo keliya u taagan, waana telefishinka keliya waxa ay Soomaali telefishinna leedahay dacwo keliya u khaasa. warka ma baxo, xayeysiin xataa kama baxdo inkastoo iska rabi lahayn. maxay ahaydayay sheeko xariir ma laha, waa muxaadaro iyo daris iyo maxay ahaydayay mu'tamar iyo khayr iyo qur'aan iyo tafsiir. marka waxaan jeclaystay fursaddan inaan ooga faa'iidaysto in aan bulshaweynta Soomaaliyeed meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, maxaa yeelay waa international television weeye, meel kastuu gaaraa. ingiriiska Britain baa laga maamulaa oo xarunta weyne ku taalla, laakiin meel walba wuu gaaraa. sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa anoo ku hadlaya bahweynta ansaaru sunna baan waxaan codsanayaa telefishinka inaad ila qaadaan oo aad nala qaadaan, maxaa yeelay waa television ay ansaaru sunna leedahay. waxaan la wareegnay oo qolyihii lahaa aanu kala wareegnay mu'tamarkii beri hore halkan aanu isugu nimi, maalmuhu dhammaadayba waa la wareegnay. 2 sano shaqeeyaa hadda, 2 sano ayuu shaqeeyaa. waxaana runtii maxay ahayday agaasinkeeda iyo maamulkeeda iyo maxay ahaydayay daba jooggiisaba leh mu'asasada ansaaru sunna. sidaa daraaddeed aniga idinma oranayo sheerka ku qabta iyo kan sameeya iyo caynkaas, waxba lacag kama rabno xaqiiqatan, wallaahi inaanan baysteyn ka rabin, laakiin waxaan rabnaa litacumma alfaa'ida, faa'iidadu inay guri walba gasho. waa telefishin dacwo ah oo loogu tala bishii waxaanu ku bixinaa lacag aydan malaynaynin, ayaanu hawada iyo shaqaalaha iyo kirada meeshuu ku shaqeeyo aanu ku bixinaa. 2 sanana waa soo wadnay insha Allah. inta cimriga ilaahay uu ina siiyey inta nooga dhimanna waa noogu ducaynaysaan inaanu sii wadno waa telefishinka. kelmado kooban baan waxaan ka oranayaa horta General Jiir iyo ansaaru sunna. iga raalli ahaada dheereen maayo. General Jiir horta jiirku waa jiirkee? waa jiirka taqaanaano, waa jiirkii halkan warbixintiisa iyo wixii loogu bixiyey YouTube-ka maxay ahaydayay
ka geliyay mu'tamarkii kan ka horreeyey ayaan xoogaa ku taagtaagsanay 19kii jiir wixii laygu bixiyey iyo wuxuu yahay iyo halkaanu isla maray xaqiiqatan jiir wax badan baa iga qabsaday oo culimmada dhexdooda iyo mu'tamaraadka iyo muxaadaraadka markaa isugu nimaano waxay yidhaahdaan war ma ninka waxaan qabtay baanu jiir u daynaynaa halkanaa laga sheegay waxaa la yidhi libaax aan u bixinno mid kalaa yidhi war maya libaax maahe aan shabeel u bixinno midba maroodi oo ninka xooggaan leh waxaan qabtay maroodi wax ka yar yaanan ku qancinin aanu abaalgudno laakiin anigu waxaan u qaatay in ay duurka ii diraayaan maxaa yeelay reer xamarka waxay yidhaahdaan yaa dabaala oo duurka loo diraa maroodi iyo shabeel iyo libaax hadday caqli leeyihiin isliyay ka dhex qaraaban lahaayeen tamaam marka waxaan idhi ilma adeerayaalow jiirkayga ii daaya jiirkayga tamaam waa mahadsantihiin maxaa yeelay jiirku waa inkaaran yahay waa taqaanaano ahay waxaa la ii sheegay xataa highwayada london iyo airportka aan weyn ee halkaa ku yaalla in uu 4 dhinac ka maro oo uu kala goosho ahay marka jiirku ma sahlana meelo badanna wax uu ka qabtaa marka jiirka markii jiir mutaxan uu soo baxay oo aan ku qancay baa waxaa timi generaalku xaqiiqatan waa feeg weeye waa falsa weeye anigu askarina maahi askari haddana uma socdo maxay ahayday dee meel maxay ahayday la qabsado iyo lagu duulay iyo wax baa ka dhalanaya oo waad garanaysaan oo muuse biixi berigii dhaweedaan booqanay buu wuxuu yidhi markaan maqlay generaal baa meesha maraya xoogaa wax baa i galay laakiin waxaa lagu yidhi waa generaal dacwo markaasaan xoogaa yaro degay generaalku markaa iskama imaane ansaaru sunna trust baan waxaan ka ahay general director ka ahay general director marka sidii general director loo lahaabaa qolyo generaali iska dhaheen aniguna waa ku yara qancay magicii yaraayo mutaxnaayo jiirka ahaana meel waxaan arkay ragga qaarkooda odhanaya sheekh jiir baa kelmad jeediyey dee ilma adeerayaalow sheekh iyo jiir wax isqabanaya ma aha marka bal ka yara daaya kow dheh oo ilaahay amarkii waxaaba iska soo budtiri generaal jiir oo maxay ahayda mix and match ah oo quruxsan oo jj ah oo maxay ahayda lagu qaraaban karo halkaasaan marka ka sii qaatay halkaa ayaan ka sii qaatay intaasi waa generaal jiir iyo magicii ansaaru sunna horta reer nairobi ama dadka dacwada iyo ku jira daafaha dunida jooga ama adduunyada dacaladeeda ilaa iyo xad waa garanayaan waxay tahay marka kelimaad kooban baan waxaan ka odhanayaa ansaaru sunna trust waa hay-ad islaami ah oo waqaf ah waxaa soo hoosgala 3-4 hay-adood oo yaryar baa soo hoos gasha ansaaru sunna group of schools al-ansaaru group of schools secondaryada iyo primaryada iyo madaarista ku naban oo integrated systemka ah halkaasi ansaaru sunna way ka shaqaysaa oo waad middaa garanaysaan Don Bosco secondary school iyo Boqolsoon high school Boqolsoon high oo wiilasha ah Don Bosco secondary school waa gabdhaha oo khaliya oo keligooda oo gaar loo xulay Boqolsoonna markii hore waxaa la oran jiray Shawri Moyo Muslim secondary school oo xaafadda shishaan u deganaan jiray oo fog laakiin markaanu soo guuray oo aan islii bartankeeda soo degnay masaajidka al-hidaaya iyo dhabarkiisa iyo xaafadahaas Morotina road waa garanaysaan baan waxaanu ka bedelay magacii ahaa Shawri Moyo waxaanu u bixinay sheekheeni weynaa Allah yarhamuhu oo daaciga ahaa Sheekh Maxamed Axmed Roble naadaystiisii Boqolsoon la oran jiray Boqolsoon baanu u bixinay waxa kaloo aanu leenahay labada primary midna al-ansaar baa la dhahaa oo waxaanu ugu magac daray dee ansaartii nabiga al-ansaar
midna waxaa la yidhaahdaa almuhaajiruun oo sidoo kale isla asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam labadoodii qaybood aan noogu magac darray waxaa su'aal iman karta Don Bosco secondary school maxaad magaca uga bedeli weyseen Don Bosco waa hay-ad weyn oo maxay ahayd katholiga baa iskuulka lahaan jirtay oonu ka gadanay magacaasay siiyeen oo sheekhooda ahaa markaanu nimi oonu aragnay siyaasaadka waxbarashada iyo in gobollada islaam muslimiinta oo northeastern Wajeer Garissa maxay ahayd Mandera siyaasaadka lagula dhaqmo xagga waxbarashada oo la rabin inay madaxa u soo qaadaan iyo ardayda Soomaaliyeed ama muslimiinta kaalmaha hore inay gelgelin badana waxaanu isniri malaha siyaasaadkii Tanzania iyo ka jiray ayaa halkan ka dhaqan galayo magacyada la isku beegsanaya Muhammad iyo Caasho iyo Cali iyo maxay ahayd ceebla baa la eeganaya marka bal horta iskuulka magaciisa loo daaya Don Bosco diisa u daaya xaqiiqatan intaanu talada qaadanayna wuxuu galay iskuulkaasi nambarada ugu horeeya ee wadanka insha Allah tabaaraka wa taala horta ansaaru sunna qaybtaasi waa qaybta waxay leedahay ansaaru sunna qayb kale oo la yiraahdo ansaaru sunna al-khayriya oo ah waxyaalaha tacaawunka oo ijtimaaciga ah oo khayrka ah ninka guursanaya in aanu maxay ahayd baritaaro oo aanu wax maxay ahayd inta aan filayo inta aan wadaad ama wiil dhalinyaro ah oo guursanaya aan guriga u dhignay intiisa ugu xoog badan 200 oo Nairobi degan weey 200 oo guri oo Nairobi degan waxaan kale oo ka qayb qaadanaa caafimaadka cid kasto jiran ama cidaanu awoodno oo nala soo xiriirta waxaanu la qaban karno ayaanu la qabanaa waxaan garanayaa qaaraan siinay intaasoo kun oo dollar oo kili iyo laga bixinayay ama maxay ahayd beerka laga qalayay ama caynkaas indhaha iyo fiiqidooda iyo ayaguna mayara tamaam marka arrimaha caafimaadkana daawooyinka aanu kuwa warqada daawada wata oo xafiiska noogu imanaya oo ansaar sunna ay leedahay wallahi hadaanan dambi ka baqaynin oo maxay ahayd tirakoob qaalam buug malihi wax ma tirakoobo laakiin waxaan filayaa bishii 500 oo kun oo daawo ah waa bixinaa oo dadka caadiga oo waraaqaha yar wata tamaam Allahu almusta'an waxaan ka qayb qaadanaa maxay ahaydayay abaaraha oo waxaan u malaynayaa hadda videogii iyo clipkii iyo sawiradii abaartii hadda ugu dambeysay tan iyo Buule Burde oo gobolka Hiirana magaalada Buule Burde la yiraahdo waxaanu ka qaybinay raashin baanu ka qaybinay abaartii hadda ahayd oo dhowr week hor gedo gobolka gedo oo meelay abaarta adag ku dhufatay waxaanu ka qaybinay cunto iyo raashin xoogan oo 200 oo qoysa baanu ka qaybinay Kenyadana ugu dareey gobollo badan xuduuda Dobley korkeeda Liboye ilaa iyo Habaas weyne waxaanu ka qaybinay maxay ahayd raashin iyo bustayaal iyo bacyaal iyo biyo dhaamis magaalada Mudoogaasha la yiraahdo kale 50 booyadood oo booyadiiba ay 20,000 joogto baanu ka qaybinay waxaasina waxaanu ka keenay oo ka soo guray waxaan sheegayo dhan haddii caafimaad ay tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday maxay tahay abaara ka qaybgal iyo dadka loo guurinayo iyo midka nooliga ka go'aya la bixinayo iyo ninka tacliinta jaamacadaha islaamiga u socda oo aan ka shubayno waxaasoo dhan waa ansaaru sunna hoggaankeeda iyo macallimiinteeda iyo maamulkeeda iyo waalidiinteeda iyo ardaydeeda baa ka midaysan halkaas waxa ka soo baxa ayaanu aayar waxna waa quudanaayo dee talaata beesteenka aanu cunayno baanu jag ka siinaa waxna ayadaanu ku celinaa waxna dee waa sadaqaysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkay ka soo baxdayna ilaahay ha inoogu bedelo khayr walaalada ansaaru sunna waalidiintooda oo marka aanu ugu yeero walaaladood dhibaataysan inay garab siiyaan amaba khaas ahaan ansaaru sunna cududooda ah Allah barakeeyo qaybtaasi waxaa la dhahaa
ansaaru sunna alkhayriya waxaan kaloo leenahay ansaaru sunna dacawiya oo dacwo khaalis ah wada oo diinta ilaahaya masaajid shariif cabdinuur la yidhaahdo baanu dhisnay oo ansaaru sunna dhistay markay ansaaru sunna masaajidkaa dhistay bay waxay qabatay xer diinta islaamka khaalis u ah oo la barayo oo culimmadii magaalada ugu xooganayd aanu usoo kaxaynay shariif tawiil iyo sheekh maxamed calasow iyo doctor maxamed jaamac iyo rag ay la mid yihiin aniguna iska looxjiid baan ahayoo kutubada yaryarka oon weligay sigiska ka akhrin jiray buluuqulmaraamka iyo intii maxay ahaydayay lala carari jiray baan anigu qudhaydu la dabagalay si aanan de ooga harin maxay ahayday akhyaarta waxaa la dhahaa dadka wanaagsan waa la isku nabaayo waa la daba joogaa tamaam halkaasi waxaanu ku haynaa dhowr sano intii la dhisay masjid shariif cabdinuur waxaanu ku haynaa arday diinta ilaahay barata oo lacag la siiyo dad lacag laga qaadaanu arki jiray oo maxay ahayd sida sacuudiga dawladda sacuudiga oo kale jaamacadda madiina ardayda dhigtay iyo umulqura iyo meelaha xoogaa yar baa la siiyaa saabuuntooda iyo dee ninkii reer qabay iyo wax kiradii ooga bixiya reerkooda waxaan arday walba siinaa lacag 20,000 oo shilin ah lacag 20,000 waxaanu soo wadnay inta uu masjid shariif cabdinuur socday sanadkii afaraad sidoo kale mu'tamaraadkan oo kale baanu qabanaa oo aad aragtaan oo kii afaraad buu hadda maraya waxaan qabanaa musaabaqaad qur'aaniya oo aanu u qabanno macallimiinta waddankan iyo jiiraanka waddanka oo Uganda iyo Ethiopia cidda ka imaanaysa waa macallimiinta qur'aanka laakiin xooggeenu wuxuu ku jeedaa macallimiinta qur'aanka ee Islii iyo Kenya ayuu xooggeenu ku socdaa waa hagaag taasi waa midda maxay ahaydayay ad-dacawiyya waxaan kaloo xaqiiqatan xoog saaraa ardayda ama Don Bosco iyo Boqolsoon ha dhameeyaan ama Soomaali ah meel kasta ay joogaan ninkii danyar ah oo u baahan waxbarasho inuu sii wato markuu secondary-ga dhameeyo hadday dhakhtar ahaan lahayd iyo hadday engineer ahaan lahayd iyo hadday lawyer ahaan lahayd iyo hadduu diin baranayaba intaba jaamacadaha waddanka iyo kuwa dibaddaba arday baanu u diray waxaa hadda waddankan ka shaqeeya ugu yaraan 7 dhakhtar oo ansaaru sunna ah oo ardaydii ansaaru sunna ka baxday baa waddanka ka shaqeeya tan iyo Mandera Machakos Aga Khan Kenyatta National Hospital iyo isbitaallo badan bay ka shaqeeyaan sidoo kale maalin dhaweedoon dhisayay oo haddaba uu ku socdaa dhismaha Don Bosco Secondary School baa gabdhihii baa batay dhowr boqol bayga marka kalaasyadaa nagu yaraaday dhowr dabaq baan ku daray maalintan dhismaha bilaabayay waxaan u yeeray arday injineera oo Don Bosco ka baxay oo haddana injineernimada ku shaqeeya oo weliba number 1 Don Bosco ka galay baan u yeeray Mr. Farax Guure oo niri qaabka loo dhisay aan kala tashtay waa dhanka injineerada maalin dhaweed anoo aas u socda baa waxaan arkay Cabdiraxmaan Sheekh Mursal oo aaska markaan xagga Sawdsea Masjid Salaam meel wadada aan soo maray baa waxaan ku arkay asaga iyo nin kale oo wada taagan mise ninkii wuxuu noqday isla lawyer kale oo isla Don Bosco group aha asaguna waa lawyer waxaan iri lawyeradii ansaaru sunna u malaynaya baan ku iri baa maanta ma aqaan ma guri bay meesha ka raadinayaan dhiil ma galay lawyerada waa taqaan waayadan tamaam Cabdiraxmaan Sheekh Mursal waa lawyer ka mid ah lawyerada maxay ahaydayay waddanka waana productiga ansaaru sunna weeye tan iyo India ayuu wax ku soo de waana sheekheeni weeyo waad garanaysaan khudbadihii ugu dambeeyay sigiska iyo maxay ahayd masaajidkeena Abu Bakr as-Siddiq tamaam ansaaru sunna walaalayaal marka waa taaweeye waa teenna waa tiinna waa taayada ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada ay ugu horeeyaan sheekh cabdirashiid iyo sheekh maxamed umal iyo maxay ahayd culimmada oo dhan oo martida inoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeye ansaaru sunna pictureka guud baan idinka siinayaa sheekhayga sheekh maxamed cabdi umal wuu garanayaa ansaaru sunna oo raggii wax ka dhisay buu ka mid yahay oo cududooda ah إلهي سبحانه وتعالى حوجيسا يا عافمات كيسا يا دين تيسا يا عقيدة ديسا الله وحوجيو عرورتنا الله وحفظيو انتاس ايان ولا ليال كسو كوبيا
waxaan ku soo dhawaynayaa microfonka waqtiga oo yar oo kooban dartii waxaa mudnaa inaan ku soo dhaweeyo dr cali moxamed saalax oo jermanka maxay ahaydayee ah mu'tamaraadka ansaaru sunna laakiin waqtiga oo kooban dartii oo ciladuna ay ka timi roobkii saaka da'aya iyo intaa waxaan toos ugu gudbayaa walaalkay sheekhayga sheekha magaalada sheekha waddanka muftigeenna sheekh maxamed cabdi umal baan toos xataa cabdiraxmaan uma marayo oo maxaa yeelay cabdiraxmaan wiilkayga weeye anigana sheekhaygaan toos insha allah ugu soo dhawaynayaa sheekhii waa sadiiqii بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إلهي ما أسكال تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودنيا وآخرة إلهي وأن أمهد علينا تبارك وتعالى بعد ذلك وحان أمهد علينا مشايخنا meelaha kala gedisan inooga yimid dhulka fog masaafaadka iyo kilomitaraadka faraha badan soo gooyay inay inoo faa'iideeyaan mu'tamarkan ka qayb galaan waddamada kala gedisan uga yimid culimadeennii ah waxaan leenahay soo dhowaada nairobi ku soo dhowaada ilaahay waxaan weydiinaynaa tabaaraka watacaala inuu safarkay soo galeen iyo socdaalkay soo galeen iyo dadaalkay bixinayaan intaba inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u geliyo cilmiga ay inoo faa'iideynayaan iyo waxay inoo sheegayaan ilaahay inuu inagu anfaco ayaan weydiisanaynaa waxaa kaloo soo dhawaynaynaa inuu heliyo embigeenna yuusuf xasan oo runtii goobaha khayrka iyo dacwada inta badan inagala qayb gala isagana waxaan leenahay soo dhawow jazakum allahu khayran waxaa kaleeto runtii mudan inaan u mahad celiyo muasasada mu'tamarkan qabatay muasasatu ansaari sunna oo ka mid ah muasasaadka magaalada nairobi dadaalka tacliinta iyo dacwada ka wada ka mid ah sheekh cabdiqjiir baa hadda sharxay qaybaheeda kala duwan iyo waxay qabato iyo meeshay ka soo bilaabatay dadaalka ooga mahad celinaynaa iyagana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro hana idinka aqbalo dadaalka aad bixinaysaan intaa kadib waxaan u malaynayaa hadalka la iguma hormarinin inaan dadka meesha fadhiya u weyna oo haddii wadaadada uu doctoorku u yaryahay anigana doctoorkaan ka sii yara doctor cali jaamacaddaan isugu tagnay jaamacat ulmadiina 2 sano iga horreeyey marka ninkaasi inaan ka yarahay sooma muuqato marka waa ka yarahay macallinna wuu ii ahaayoo meelaha qaarkood macallin buu iigu ahaa marka macallin iyo ardayna mar walba ardaygaa yar sida badan marka macnaheedu maaha in laysoo hormariyey inaan garhgacas ha arkina rag baa farsameeyey laakiin anugu ma farsameeyo allah idin barakeeyo safar baan runtii u bixi rabaa oo safar gaaban baan aadaya saasaa marka la iisoo hormariyey anaa codsaday laakiin waxay ahayd in culimada martida aan lasoo hormariyo annagana aan un ducayno maadaama ay marti noo yihiin almuhim walaalayaal jazakum allahu khayran allah idin barakeeyo xuduurka iyo kasoo qaybgalka rag iyo dumarba runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyadoo weliba saaka roob da'ayay in aad soo buuxisaan waxay tilmaamaysaa
xiisaha aad u qabtaan runtii khayrka iyo culimmadiinna inaad la kulantaan inaad ka faa'iidaysataan inaad aragtaan dad la arko oo laga faa'iidaysto loo yimaado dadkii u fiicnaa waayo waxay wadaan waa ilaahay kelimadiisii waa qur-aankii waa sunnadii waa wacdigii khayrka dhankiisay inoo wadaan marka jazaahum allahu khayran baan leeyahay mar kale innaga waxaynala gudboon inaan juhdiga iyo dadaalkaas uusan meel cidlaa dhicin marka laynoo sheegayana inaanu ku dhag raaricinno oo si degganaanshii xasillooni ku jiro u dhagaysanno markii aan dhagaysanno on fahanana inaan dhaqan u beddello oo cilmiga aan maqlayno aynu nolosheenna wax ka beddelo maxaa yeele ruux hadduu cilmi faa'iidaysto cilmigaasina uu noloshiisa waxba ka beddeli waayo fogaanshuu kordhiya inuu ilaahay ka sii fogaado dadka aakharo cadaabka loogu horumarin doonana waxaa ka mida nin culimo ah marka cilmigu waa wasiila waa dariiq loo maro camalka marka waa inaynu isku dayno wixii culimmada aan ka maqallo inaan insha allahu tacaala u beddello camal iyo inay nolosheenna wax ka beddello insha allahu tacaala wax kororsanno wax faa'iidaysanno wixii aan qaadannana insha allahu tacaala guryaheenna iyo nolosheenna iyo ganacsigeenna inaan wax kaga beddello biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaasaa innagana inala gudboon waana inta ugu yar oo dadaalkaa culimmadu ay bixiyeen aan runtii kaga abaalgudi karna waayo dadaalkaas abaalgudka ugu weyn waxaan dhihi lahaa abaalgudka ugu yar aynu bixin karno waxa weeyaan inaan ka faa'iidaysanno cilmiga ay gudbinayaan kadibna aan ku camalfallo intaasaa iyagana wax weyn u ah ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala hadalka inaan kusii dheeraado ma rabo wax badan oon idiin sheegana ma jiro innagu reer nairobi baan isla nahay warka intiisa badan culimmada martida abuu la jiraa innagu waa isku badbadannay waana isku badbadan doonnaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ma aqaano sacabka muctamaraadka laguma aqoon jirin marka malaha shacab saaqjiir baa qiil u hayaan u malaynayaayo masalada iyada laga yaabo waagii hore waxyaalo fara badan oo go-aan baa jiri jiray oo aan muxuu ahaayey la diidi jiray laakiin waayaha dambe waxoogaa waxaa inagu dhacay wax badan oo la fududeeyey marka qaybahaas qiilka loo helay inay ku jirta anugu ma aqaanee waxaan dhihi lahaa sacabka waxaa ka fiican xataa hadduu bannaan yahay waxaa ka fiican takbiirtaa ka fiican oo ka sugan nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa markay shay istixsaasanaad ama u bogaan allahu akbar bay dhihi jireen allahu akbar marka taasaa fiican taana insha allahu tacaala waa mulaaxado aan baraarujinayo biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan leenahay mar kale soo dhawaada allah idin barakeeyo jazakum allahu khayr aniga waa idinka tegayaa inaan joogo oo muctamarka iyo muxaadaraadkiisa ka qayb qaatana waan jeclaa laakiin waxoogaa safar yar baa igu jirta ducadana iga soo daba tuura insha allahu tacaala idinkuna waa ducaysan tihiin allah idin barakeeyo you are welcome insha allahu tacaala cabdiraxmaan soo intaa igu kallifay wuxuu ku daraa sooxirigii walaawa kariimuni wote waba marka intaana waa fariintii sheekh cabdiraxmaan oon iska reebayo jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu تكبير شيخ هذا الكسبان طبقنا إن شاء الله يا تكبير وحكى ما سو استاجين وان بوي ميكروفونك عبد الرحمن رالي اهو وان كاب بوي شيخنا شيخ محمد عبدي أمل جزاه الله خيرا ونوفر فري ونبحيا وانا سادو جدان حواشة وحنوسين يهي وحنوسو استاهي كلية فرصتنا كفا يستوى جمع عن فردية هل مروة أدعينا شيخينا الآمين ترأذان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي شيخ حفظيه شيخ الله عافيه
xooggiisii ilaahay subxaana wa tacaala oo dhammaystiran allah u soo celiyo caafimaad dhammaystiran allah u soo celiyo xanuunka iyo laxawgiisa allah ka qaado xanuunka iyo laxawgiisa allah ka qaado ilaahay daawadooda iyo daawada bani aadamka allah ka kaafiyo ilaahay xaggiisa daawo allah ka siiyo waidaa maridtu fahuwa yashfiini ilaahay ha shaafiyo ilaahay sheekhaan noo shaafiyo xooggiisa iyo carabkiisa iyo cududiisa iyo cilmigiisaba allah noo barakeeyo carabkiisana allah noo barakeeyo xooggiisa iyo hadalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala ummaddu ay u baahan tahay allah noo siyaadiyo ilaahayna cimrigiisa ha noo dheereeyo dacwada iyo diinta iyo khayrkana allah noogu dheereeyo ilaahayna caafimaad buuxa sheekha allah siiyo si qalbiga ugu duceeya ilaahay intaanoo meesha isugu timi aamiintooda ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inaanu nagu hoojin ee ilaahay noo ajiibo ilaahay inuu noo ajiibo sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad aan wax xanuuna ka tegin inuu ilaahay siiyo aamiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat جزاكم الله خيرا شيخ محمد إدريس ومهدسن ياهي شيخنا كهري شيخ محمد عبد أمل ومهدسن ياهي وأنا بس كتيمة مكت جنرال مكت أفجنبي والوية قنا سجى أفجنبي يقول بلا بجنرالك مركا هذا وسوء عشتي أودي أنت أنكلي ويا مكت أودي وسوء عشتي جنرالكم جزاهم الله خيرا شيخنا مركا أسكف صحينا شيخ محمد عبد أمل جزاه الله خيرا سفر سلامة أن رجينا إلى نبضها كوجيو نبضنا كوسو عليو مركا شيخ وفصحية جزاه الله خيرا برنامج كويس ودرينا إن شاء الله تعالى هذانا إن شاء الله تعالى وحنشعل هنا نويرو مهشمي ويوسف حسن عبدي هي كلمة ديسة إن شاء الله MP جينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم runtii waxay ii tahay farxad iyo sharaf inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan diimeed afraad ee ay qabanqaabiyeen ururka ansaaru sunna marka hore ugu horeysa waxaan u tahaniyadeynayaa u mahadnaqayaa sheekh cabdirasaaq jiir iyo ururkan hawsha fiican ee wahayo xagga waxbarashada xagga dacwada iyo xagga taageeradaba iyo qabanqaabinta uu isugu kaya keenay munaasabadan qiimaha iyo sharafta badan waxaa kaletoon doonaya inaan soo dhoweeyo martida sharafta leh culimaadudiinka nooga yimid meelo kala duwan oo ka baxsan dalkeenna waxaan leeyahay ku soo dhowaada magaalada Nairobi iyo khaasatan Isli runtii markaad eegto dadka ka soo qayb galaya wada culimaadudiinku waxaa ka mid ah sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sheekh doctor bashiir axmed salaad sheekh mustafa xaaji ismaaciil sheekh doctor maxamed cusmaan sheekh doctor maxamuud shucayb sheebu شبلي شيخ محمود شبلي وشيخنا إسلية شيخ حسين علي جبوتي شيخ عبد الناصر حاجي أحمد شيخ محمد إدريس شيخ دكتور علي محمد صالح iyo sheekh doctor Yusuf Ahmed waxa kale too saddexdan cishe aad munaasabadan joogtaan ka soo qayb galaya sheekh doctor Ali Maxamed Saalax sheekh Saciid Raage sheekh Jamaaluddin Usmaan sheekh Cabdiraxmaan sheekh Mursal sheekh Maxamed Duleydin iyo sheekh Cabdiqani Bashir kulligiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan idin rajaynayaa in ay noqoto saddex cisho oo qiimo leh runtina intaasoo culimo oo qiimahaasi weyn sharafta leh ee halka noogu yimid waxay u eg tahay islii inay ducaysan tahay islii inay barakaysan tahay in intaasoo qof ay u yimaadaan inay hormariyaan diinteenna sharafta leh ee islaamka ah idinkuna waad ku mahadsantihiin kasoo gasha aad ka soo qayb gasheen idinkoo waxyaalo badan samaysan lahaayeen maanta inaad isugu timaadaan oo aad dhegaysataan culimmadan cilmigooda iyo dacwadooda
waxaa kaletoon doonayaa inaan sheekheenna sheekh maxamed umal ilaahay uga barya caafimaad iyo cimri dheer sheekh axmed jiirna sida la sheegay waa generaal dhab ah ninkaasi halgan buu galay dagaalahiin cusub buu sameeyey xagga waxbarashada sida uu sheegayna iminka dadka ka soo baxay dugsiyadaasi oo tacliintooda ay aad iyo aad u horrayso waxbarasho qiimo leh ayuu siiyey meel kastana waad ugu imanaysaa waanan kula qaadaynaa dacwa television waanan kugu tahniyadaynaynaa inaad dhan kastaba halganka ku jirto oo aad horay u marinayso diinta islaamka marka kulligiin waxaan doonayaa dadka sheeyaha ee aan soomaaliga garanaynin I would like to welcome all the visitors including the non-Somali speakers who have come to Isli. You're welcome. This is your neighborhood, your town. You can see the warm, beautiful faces that have come to welcome you here. And I wish you 3 days of wonderful discussions and listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad iyo aad u mahadsan yahay MP-ga Mheshimiwa Yusuf Hassan Abdi